halkan waxaa ka muuqda waa buu abalki waa 4 days kaliya ku jiray aniga gacanta ku hayay oo dadka inta ku maamulin si ay geedkaas maadaama uu yahay abal geed qaaliya uu soo biqlay marka dhamaan uu soo biqleen oo ka gacanta ku hayaan macaan uu soo biqleen si fiican bay marayaan wixii dadkiina kayo baahan la caawiyaa diyaar baa loo caawin insha Allah alxamdulillah geedkan waan bugu engineer sayid ayaan hadiyad ahaan ugu soo dhiibay Nairobi ka keenay maalinta hore la soo dhii wuxuu yaani direct flight ma soo qaadan ilaa 5 bari baa hayay waxaa yara qaldoomay flight kii baa naga qaldamay markaas 5 bari baa dib u dhacnay 5 bari markii dib lagu daro iyo maalinta aan soo soconay maalinta ku xigtay 7 isbuuc buu banaanka yaalay oo isbuucaas wax biyo ah bacab isaga xirnaa iminkana waad aragtaa wuxuu soo bixiyay booqi marka waxay ku tusinaysaa inuu yahay geed adkaysi badan oo maartay isku hubo technicality-gina hadee qofka u baahan ka caawin waa laga caawinayaa engineer Sayid baa noo joogo Somaliland insha Allah iminkana waxaan aadaynaa engineerka sidoo kale 4 geed oo super napier kamid ah oo isagana u soo dhiibnay wax yar ka hor wana tusin doonaa insha Allah biidnillah وبحي مكان انت سوبر نيبير كغارين ماشي waxaan ku aragnaa dheenti oo xarunta ugu diyaari hadana waa kana baxay saarada ugu dhaxbeeray imika waxay maraysaa mitir iyo xogaa 2 mitir maraysaa ormast ta laga dheer baan ma sha Allah 2 mitir wata geedka fiican weeyaan quruxda badan waana geed waana dhirtii native-ka haysid native-keeda lagu dadaalay waxaan qofka grafting wanta jaabiyo ku baxaysaa waa ku baxaysaa ma sha Allah grafting ku baxaysaa seed ku baxaysaa intaba labada ku baxaysaa ma sha Allah seed wada shaa ku baxaysaa seed lagu beeraa grafting ku baxaysaa ma sha Allah marka waa alxamdulillah okay xaga waxaan u joognaa geedihii super nabierkii waxay jiraan biliga xoogaa almost biliga xoogaa way jiraan waliba sida ka dheereeyeen sida ka dheeranay meesha mar lahaayeen dameer ba soo cunay oo baaqan nafaqaysa nutritionkiisa 80% fiican marka xayawaan kasto way maada oo xoolaha geedaha cunaa ama xoolaha ama dameer ahaayo uu cunaya soo eeganaya soo abaaraya macaanku yani waxa soo dhan green kan soo dhan oo iyo cawskan ka soo leexanay ka wimaaya meesha cusba ku yaalay dhulka soo cusba ku yaalay miimanin ma fiirnayaan goostaya marka waa kala xataa waa goostaya soo cunay si fiican bay waqtigaas dib bayna u soo baxeen ma dhiman ma sha Allah waxay bixiyeen imsa ruqrad 1 2 3 4 5 6 تضبط سديد سجاد طبعا كويت ولا بيتو مرة وأنا بلي وحنا بلي والله عنا سجل عنا ما شاء الله أضواء فعيا بك بيرلي ده بك حوالك طلع إن شاء الله قلت لنا بحيث إنك يا بحرنا تعاون كرنا إنك جيت كهاي بيرتان إن شاء الله عيد اللقب سنة فرود الدقيقة وجيت كاسف سيدا في عنا فروض بحير إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فرحت بقيت إن أنا أركمارتي عن سوري بي أو قولستي waliba challenges imaaday ya engineer marka aad ba u maasan tahay engineer Sayid Allah ku sharfo si ay soo dhaweysay Hargeysa igu soo dhaweysay sidoo kale waxa la kulmi doona engineer Maxamed oo kamid ah maartay ragga groupka beerleyda Soomaaliyeed buu kamid yahay aqoon yahanadeeda yu kamid yahay engineerka wuxuu u taagan yahay xagga nursery-ga xarunta wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada ha laga faa'iideysta intii reer Hargeysaawi ah iyo reer Somaliland injineerada ha laga faa'iideysto wixii yani dhirta korinteeda haday cudurro ka hayaan hadii aad maaragtay cudur ama cayayaan ka dhibeen beertaada waa la soo xiriiraysaa nambaradooda waa isla shaqeynaa ragga isla shaqeynaa waa beero badan bay gacanta ku hayaan oo gacanta isku lahaynaa wixii daawaad iyo technical oo dhan ayaka hayo marka dadka haysatiin ha laga faa'iideysto waa fursad dahabi idin ah in dad aqoon yahanin oo cilmigi iyo technicalki iyo wax walba isku darsaday iyo experience-ki oo waliba dhalinyaro iyo odayaal isugu jiro waaya arag ah marka jazakallahu khair engineer jazakallahu khair beerleyda Soomaaliyeed maxaa leedahay bismillaahir rahmaanir rahiim beerleyda Soomaaliyeed waxaan leeyahay sida uu absaaq sheegay kulay dadku beerleyda ay wada beerleyda ma aha dad baa beeraha aan si fiican qof fiican lahayn qof kastaba dadka u dhow beeraha aqoon u leh
هودي وحي تلا فاسألوا ها فاسألوا ذكر إن كنتم لا تعلمون marka dadka beerleydi inta badan su'aalaha wana soo weydiiyaan waana ugu jawaabnaa laakiin صح inay ka ag dhawaadaan dadka waxaan ehelkeeda aqoonta ehelkeeda leh weydiiyaan aad bay u fiican tahay u fiican tahay adiga waxba cimriga kor baa kordhiya qofka naftiisa farxad buu tahay qofka caawiya waxa ka mid tahay aqoontiisa adigana ajir baad ka helaysaa marka maalin kasta waxaan jecelahay in dad geedisiyo waa jecelahay صح ta qof beertiisa ka caawiyo ama xanuun ka caawiyo nasiib baa ay dhahay isiya sida macnaha tala guud la siinay صح ما شاء الله dadka waxa tala guud waxa siinaya intaan dadka beerley wax ku dhaqaaqin dadka cilmiga u lahaa consultation ay la wareystaan tala ka qaataan marka talaabada markaas aad qaado dambe waxay ku siinaysaa inaad talaabo midhaba fiican aad qaado marka hadii la ka dhigo anagu diyaar baan nahay waxay tagna kale caawama wixii tala iyo tusaale baa hadii saan joognaa Somaliland hadii imka telefoonka dama kasta waa iska yeelaya Soomaaliya oo dhan marka diyaar baan nahay oo caawinayna waxaan jecelahay dadka beerleyda Soomaalida oo dhan wax beertaan ninki wax beertun baa baahida ka baxaya aad baan u mahadsantahay nimcaan inuu soo dhaweysay groupkan كورانية إنجنير كمان مسؤول يسوي إمكانه أنا سيف عم وشقينه إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير جزاك الله خير